asalaamu calaykum markaan laga daawanaysiin waa wanaag qoyska aala u barteen barnaamijka arrimaha bulshada. waxaa halkan hambali uu direynaa walaalkan iyo walaasheen Heykel iyo boqorada isteelka oo maanta meherkooda ka dhacay magaalada Muqdisho. dhanka kale waxaa u soo hambaliyeeyay dad caanka ah baraha bulshada qaasatan barta ee kusoo caanbaxday boqorada isteelka ee TikTok. waxaana dadkaas ka mid ah Samiixa Khaliil iyo dad kaloo caanka ah baraha bulshada. dhanka kale Fartuun Balaarka ayaa iyadana u soo hambaliyay saaxiibteed boqorada isteelka oo sheegtay in ugu dambeyn ay ka baxday singalnimada. dhanka kale ayadana Ilaahay waxay ka barisay in uu nin u sahlo maadaama ay hadda ay tahay garoob ay raadinayso nin. waa tan Fartuun Balaarka oo u hambaliyeenayso saaxiibteed boqorada isteelka. boqorada isteelka anaga macsalaamayna dhahdo iskaabulo way ka baxday. boqorada isteelka iskaabulo caawa ugu dambeyso way ka baxday macsalaamayna dhahday. waa qofta kaliya ee TikTok oo guursato. inta TikTok aan arkeeno waa qofta kaliya guursata aragnay. bye bye na dhahday dhamaanteen. ala iskaabulnimo anaa dadka ugu xun. iskaabulnimo anaa dadka ugu xun. qaalada ninkeyga shalay soo ceshatay. ana iyo qubiin qaawan iyo naaga badan iyo qubiin canab iyo iskaabulnimo waa anaka inta fadhino. aniga horta nin marabi qubiin canabna saas oo kale qubiin qaawanna saas oo kale nin marabto. boqorada isteelka waxaan ku leeyahay kuwa hambalyeena adiyo maxaa la dhahaa ninkeedii sheegbo Heykel iyo adiga waa kuwa hambalyeena raaxaysta jawi macaan qaata ininka iskala hargeysa ka bacdi liimadiidaayo hargeyso waa galaa